dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. runtii maanta waa maalin caawa waa habeen kale oo aan isleeyahay riyooyinkeennii ganacsiga kii ugu sarreeyey baynu gaadhnay. waxaa halkan laynoogu soo bandhigay waxaad moodaa imika inaynu filim daawanaynay, mucjisooyin baa laynoo tusay aynaan runtii hore arag. taana waxaa keenay horumarka ganacsigu gaadhay, nabadgelyada aynu haysanno. marka intaa la isu geeyey waa arkaysaan halka ay marayo ganacsigeennii inaynu kaatunkii iyo saacaddii wax ku iibsanno. waanu hambalyaynayaa shirkadda ama banka Salama Bank ama Telesom, iyadoo aad moodo inay horumar u ahayd muddo badan inoona bilaabay digitalka ama saadka waxaanu wax ku iibsanayno. maantana horumar weyn oo runtii la oran karo waa mucjiso ayay inoo keeneen. waan ku hambalyaynayaa. Sacuudigu maaha anigu bardhawada aan meel kale qabtay, wuxuu baad moodaysaa in Hargeysa joogo, lacagna ma qaadan, kaashna ma qaadan, saadkuun baa ku dhex jiray, dabadna saadkuun baa ku sarifan jiray, dabadna waxaad moodaysaa in Hargeysa joogo. aad baan u yaabay. mararka qaarkood waxaa la soo jaray dowladda aad la joogtaa ku qabatayba waxaan ka dhex bedbedelanayso. waxaynu ku gaadhnay runtii waa ganacsiga xorta ah iyo dadkeena oo u bisil runtii inay dad ku dhiiran yihiin inay ganacsiga gaadhsiiyaan meelo badan oo dunida ka mid ah, oo dunida hore u martay ka mid ah. innagoo aan la ictiraafsanayn baynu gaadhnay meel aanay gaadhin. alxamdulilaah, aad iyo aad baan ugu hambalyaynayaa, waana ugu ducaynaynaa.